dad badanaa waxay ka hadleen qaadiyayaasha ayagoo sheegayo in nabad lagu soo dabaalo arrimaha ka taagan gobolka hiiraan waxaan u sheegaynaa ummadda soomaali shil baa dhacay abaar baa dhacday abaaru hadday dhacday ilaahaa keena wax yaroo roobahoo gobolkaa ka da'ay ummad badanaa isugu timid maalintii dadku soo qaxeen ee socodka la soo bilaabay odayaal baan dirnay ku soo wareegay dhulka degaanka noo ah si ay dadka wax ugu sheegaan ama ay ka dhaadhiciyaan qofba siduu u yaqaano in dadkaas imaanayo dhulka la nabadgeliyo waxaa ilaahay mahaddiisa arrintaas annagu waa noo fush waa ku guulaysan su'aal baa ka soo baxday marka war su'aashii ka soo baxday maxay noqotay wa ninkaad gogol u dhigtay ood soo dhowaysay inuu yidhaahdo ciidankaygu difaacow ku jiray ugaas xasan waa wada hadal waxaan ku idhi ugaasow ciidankaaga dib u qaad ugaas xasan wuxuu iigu jawaabay ciidankaygu difaacow ku jira waxaa isweyddiin la marka war ugaaska iyo ciidankiisu gogoshii loo fidiyey difaac ka galeen base dhulkoodahay difaac ka galeen soomaaliyaa la weyddiinayaa intaas war annagu dagaal ma wadno ma rabno nabadaannu rabnaa dhulkayniyaannu joognaa ummado badan oo ay qabiila baa gobolkaa yimi waxaan ka xumahay ugaasku inuu yidhaahdo ciidankayga difaacu ku jira ee gogoshii aan shalay u fidiyey inuu yidhaahdo difaacan ka gal war gogosha anaa lehe see difaac uga geli waa su'aal maxaa kaloo jira waa dadku wada hadalka haddii la halleeyo ma soo noqon karo ugaasku waxa kalou igu yidhi bacda soon aan isu imaanaynaa war xabbadaa dhacday dagaalaa taagan bacda soon xaal lagu gaara bacda soon aan isu imaanaynaa markuu leeyahay ugaasku war ugaasku gadaal muxuu ku ogaa maxaa u qarsoon su'aalaha badanaa ka soo baxay oo u baahan in laysweyddiiyo waa ka xumahay taas anigu mid waa filayo ugaasku inuu yidhaahdo war waa idiin imaanaynaa ama noo imaada waxaan aan joojinno laakiin bacda ramadaan aan isu imaanaynaa ma filayn qofaanu hayo ugaaska annagu hadday xun tahay hadday san tahay intaasaana kala gaartay qof kasta oo soomaaliyahow ogow qof kasta oo soomaaliya ha ogaado dadka meeshaan ku soo qaxay qabiil kasta waa ku jira reer hiiraan dad baa maanta u gudbay qorraxsin oo roob lagu sheego war dhibaatada hadduu ilaahay keeno dadku alxamdulilaah inay yidhaahdiin waay laakiin ma aha in dhibaato kale laga sii shaqeeyo iyo ciidankayga difaacu ku jiraayo wax lamid war ninkii gogoshii loo dhigay difaaca ka galay bal ha isweyddiiyo